soo dhawaad saaxiibayaal halkan ayay ka bilaabanaysaa qaybta labaad ee filimka. Markan waa markii uu dilayay ninkii kala soo cararay katiinada asagoo raba inuu midi geliyo. Waxaa rag dagaal ka soo maraya aabihiis kadibna labadoodii iyo gabadhii wuxuu sameynaya inuu helicopter saaro kadibna uu qaato meeshii asaga uu ka tilinaya yacni qasrigii. Markii uu soo dajiyo wuxuu sameynaya inuu labadii gabdhood uu qol gooni geeyo Changin oo qol gooni uu geeyo. Changi markan wuxuu galayaa xasuus waqtigii uu soo tababaray jiray kadibna cidii ay bixi jireen tababar awgiis meeshii ayuu tagay markan waliba qolkii uu ku tababaray jiray ayuu markan dib ugu laabtay. Changi waxa uu aamin laayay ilaa hadda balse markan wuxuu u tagayaa aabihiis wax walba oo dhacana markan aabihiis uu sheekeynaya ee sababta ay ku kala tageen ilaa haddana gabadhii way aamin laayay sababta ay ku kala tageen. saaxiibayaal wax yar aan dib u laabano qaybta hore ee filimka. Markii Changi aabihiis uu la dagaalayay gabadhii ay isbarteen kadib meesha waxay imaatay inay isguursadaan kadibna ay carruur dhalaan. waxay u dhashay markaas Changi iyo gabadha hadda la jooga. Markaasna Changi aabihiis wuxuu uga sheekeynaya wax walba oo dhacay iyo sida isku barteen hooyadiis balse Changi ilaa hadda waxay rabaan in hooyadu ay goobaan maadaama aabahood uu la joogo. waxay rabaan inay meeshan ay ka baxsadaan. waxay goobayaan markan ay ka soo tagaan aabahood si meeshan ay uga baxsan lahaayeen. waxay irada ay goobayaan markan waxay ku tashanayaan inay meeshan ay ka baxsadaan. waxay sameynayaan markay talada u dhamaato inay qol gooni ay soo galaan yacni wada kale ay arkaan. waxay meesha kula kulmayaan nin kale oo meesha xabsi ku ah. waxay weydiinayaan meeshan maxaa ku keenay ninkan wuxuu wataa bahal yar oo meesha uu ku heshado maadaama asagu meesha xabsi uu ku yahay. waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan meesha ka baxno kadibna adiga aan ku heshano yacni aad talana siisid. wuxuu ninka sameynaya inuu furayaasha meesha yaala mid kamid ah uu soo xado kadibna waxay sameynayaan inay gaari ay ku baxaan oo carraan. meesha waxaa lagu ogaanayaa kaamirada ku xiriirad balse waxay sameynayaan inay baabuurtii qaataan kadibna meeshii ay ka baxsadaan. aabihiis wuxuu ogaanayaa in baabuurtii ay baxsadeen nimankan ay baxsadeen wuxuu leeyahay faraha iyo qaada. marka waxay soo baxeen dhankaasi kayntii baalka yarka oo la socda ayaa wax walba amar siinaya meel walba ay ka bixi lahaayeen asaga ayaa siinaya. waxay soo galayaan dhul hawda balse dhulkii markan wuxuu sameynayaa inuu dhulkii geedihiina ay ku jabaan markan. waxay sameynayaan inay marka geedaha ay ka dhex baxsadaan kadibna waxay soo galayaan meel biyaha balse markan way ka soo badbaadeen biyihii godkoodana way ka soo baxeen. waxay imaanayaan meel boqortooyo ah oo bahlo iyo dad badan ay joogaan. way la yaabayaan meesha say tahay dhulku san yahay. kadib waxay soo galayaan dadkii boqortooyada ahaa oo meesha ku soo dhaweynaya. markii gaariga ay ka soo degaan wax walba way u sheegayaan balse arrin filan ay meesha kula kulmayaan. naagtan boqortooyada madaxa u ah waa walaashood hooyadu walaashood waaye. carruurteedina way soo dhaweeyday markaan waliba si fiican ayay u soo dhaweeyday wiilkii iyo gabadhii la socotoo kale. kadib gaariga waxa ka soo degaya ninkii soo badbaadiyay oo mataqaana godkii ka soo badbaashay. kadib asagiina waa la afgaranayaa waxaana ka baryayaa Changi. kadib asxaabtii way soo raacayaan waxay keenaysaa meesha boqortooyada kaydka u ah oo mataqaan wax walba qaaraamihi ay yaalaan wax walba ay tusiyaan waxyaalihii hore oo lagu dagaalami jiray balse ayagu ilaa hadda arrintan way la yaaban yihiin. waxay weydiinayaan hooyadood iyo mataqaana meesha ay jirto. waxay leeyihiin hooyadu way dhimatay balse ayaga ay rabaan in la joogaan markan. waxay rabaan markan inay mataqaan la tababartaan labadii bahlo yarka ay arkaya balse meeshan waxay rabaan inay ku tababartaan. waxaa la geenayaa meesha yarta oo lagu tababaro carruurta. markan Changi wuxuu tagayaa qolkii xasuustii hooyadiisa sawirada ee wixii yaaleen meeshan ayuu wax walba uu ku rumaysanaya markan Changi. kadib waxaa la rabaa in la geeyo meesha tababarka oo mataqaan lagu soo tababaro ayaga ee dhamaantood. markan Changi waxaa la siinayaa tababar casri ah wali waxaa tababar siinaysaa hooyadiis walaashiis wax walba oo tababarna way u garbaxaysaa markan. aabahood markan wuxuu fadhiyaa gurigiisii wuxuu la kulmayaa xasuus fara badan waliba ilaa hadda xaaskiisa xasuustiisa kama go'in. waxa uu imaanayaa shaqaalihiisa mid kamid ah wuxuu leeyahay baabuurta aan ku bixi lahayn waan diyaarinay maadaama wuxuu rabaa inuu carruurtiisa ilmihiisii uu ka daba tago. kadib ninka lagu magacaabo Changi markan wuxuu galayaa xasuus markan wuxuu soo xusanayaa hooyadiis. waqtigaasna waxa soo weeraray niman tuuga ah. hooyadu waxay ka amarsaa labadooda inay gudaha ay galaan oo hawshan ay bari ka noqdaan balse ninka lagu magacaabo Changi markan wuxuu taagan yahay daaqada wax walba oo banaan ka dhacayana wuu la socdaa. hooyadu markan waxay sameynaysaa inay dagaal u soo jeesato oo nimanka iska dhiciso. nimankaana waxay ballan ku qaateen inay dilaan ayada. markan waxa imaanaya Changi aabahood wuxuu arkaya xaaskiisa dhulka taala labadoodina markan waxba way ka qaban laayiin sababtoo nimanka tuugada waa iska baxeen. kadib ninka lagu magacaabo Changi aabihiis wuu soo baxayaa asagoo wiilkiisa wata. wuxuu imaanayaa nimankii meesha ay joogeen wuxuu sameynayaa inuu nimanka dhammaa uu laayo oo awoodiisa uu isticmaalo nimantina uu baba ka dhigo. markaana wiilkiisii wuu arkayaa wax walba uu hortiisa ku sameynayo wiilkiisa uu daawanayaa. kadib wiilkiisii asagii waa ay soo baxeen. Changi markan waxaa loo dhiibayaa midi oo aabihiis ayaa mataqaana markan midi gacanta ka saaraya si mataqaana cadowgiisa uu iskaga dhiciyo. Changi markan wuu fakarayaa sababtoo ah xasuus fara badan ayaa haysata. gabadhii ayaa u imaanaysaa waxay weydiinaysaa wax uu ka fakarayo wax walba uu u sheegayaa waliba wuxuu u sheegayaa
mataqaan waqtigii aabihiis uu ku amray inuu gacan ku dhiglo noqdo waliba magaciisa hadda Changi inuu ahayn oo magac kale uu lahaa oo aabihiis uu ka bedelay bas gabadhii wax walba uu sheegayo markaan way u dulqaadanaysaa oo way dhageysanaysaa Changina markaan xasuusaas ayaa haysataa markaan familkii boqortooyadii markaan way baashaalayaan xayawaano ay la baashaalayaan kadib waxa imaanaya meeshii Changi aabihiis oo ciidankiisa soo qaxaystay markaan iyo Changi iyo ciidankiisa waa isku imaanayaan bas markaan ciidankiisa dhamaanteed waxba kama u tagin Changi aabihiis markaan wuxuu weydiinayaa inay meesha u banayaan godka madow kadibna uu xaaskiisa uu ka baaro meeshaas cadowga iska dhacshana kadib waxa iska hor imaanaya labadii boqortooyo markaana meeshii dagaal ayaa la iskala hor imaanaya balse markaan dagaalku uu bilaabanaya marka ninka lagu magacaabo Changi aabihiis wuxuu sameeyaa intuu dagaalka uu socdo inuu baxo oo aado meesha sawirada xaaskiisa yaalaan balse Changi ayaa ka daba imaanaya markaan labadoodii markaan waa iska hor imaanayaan waxa ka dhex bilaabanaya labadoodii dagaal balse Changi markaan aabihiis ayuu xaq dhowraya kadib Changi waxa loo gacan qaadaya balse markaan Changi waxay labadooda dagaalmaan Changi markaan dhulka ay ku dhacaya sababtoo ah waa laga awood baan yahay labadoodii markaan waxay dagaal leef ay iskala hor yimaadeen labadooda markaan waxba isku ma reeban balse Changi markaan wuxuu sameeyaa inuu aabihiis ku dhufto balse Changi markaan aabihiis uu soo kacaya isagoo dur taagan ayuu wax sameeyaa inuu awoodiisa u isticmaalo kadibna intuu feer ku dhufto oo badda ku dhex tuuro Changina markaan badda ayuu dhex galayaa kadib Changi aabihiis uu soo baxaya wuxuu imaanayaa meeshii uu madoobada iyo imaanayaa kadibna markuu uu taabto meeshii waxa soo baxaya bahalo balse boqortooyadii ay qasidilaya ay waxay arkayaan bahaladii oo soo firdhinaya si bahalan iska celiyaana waxay leeyihiin waana iskaashana oo dagaalka joojinaa kadibna bahaladan iska hortagnaa kadib ninkii Changi ahaa wuxuu dhex jiraa biyihii ilaa hadda biyihii kan soo dhex bixin markaana uu ku dhiman rabo wuxuu soo xusanayaa hooyadiis waqtigii ay dhigi jirtay isadkee oo mataqaan adag noqo kadibna wuxuu sameeyaa inuu kor isku soo qaado asagoo kor isku soo qaadaya waxa badbaadinaya caawiyihii boqortooyada kadibna biyihii kor ayuu uga soo saaraya dadkiina markaan waa la yaabayaan sida uu soo badbaadiyay bahaladii markaan waa soo firdhanayaan sababtoo ah aabihii ayaa meesha gargaraacaya markaana habaryartiis waxay u sheegaysaa inuu ku celiyo aabihiis meesha uu gargaraacayo bahaladuna ay ka soo baxayaan aabihiis wuxuu ku baaqayaa marka inuu dagaalka u joojiyo balse aabihiis markaan dagaal ay iskala soo hor imaanayaan labadoodii markaan Changi wuxuu sameeyaa inuu aabihiis uu ka qaato awoodii 10 gacmood markaan labadoodii dagaal farban ay iskala soo horjeesanayaan Changi wuxuu soo xusanaya waqtiga hooyadiis aabihiis ay waxaan baraysay ugu dambeynta Changi markaan wuxuu aabihiis ugu baaqayaa inuu dagaalkan u joojiyo waxaana ay khalad yihiin Changi aabihiis markaan waxa qabanaya bahalkii weynaa markaan bahalkii weynaa wuxuu sameeyaa inuu bahalkii uu Changi aabihiis u cuno kadibna uu kor u qaado asaguna markaan indhaha uu ka daawanaya sababtoo ah waxba kama qaban karo kadib Changi wuxuu helayaa awoodii 10 gacmood sababtoo ah aabihiis ayuu bedelay awoodii ayuu ka dhaxlay markaan aabihiisna waa u dhamaatay Changi wuxuu sameeyaa inuu bahalkii uu feer ku dhufto markaan bahalkii uu biibiyo kadib bahalkii wuxuu sameeyaa inuu xanaaqo waxay kor fuulayaan asaga walaashiis caawiyihii boqorka ay kor fuulayaan markaan waxay sameeyaan in bahalkii kale ay dilaan sababtoo ah dadka ayuu leenayaa kadib bahalka wuxuu sameeyaa in korka caawiyaha ay ka fuulaan kadibna bahal kale ay ugaarsadaan waxay sameeyaan in bahalkii geesa ay ka maran balse markaan walaash ay bahal ka dhici rabta walaash waxay ugu baaqaysaa siida balse gabadhii saaxiibtiis ahayd ayaa markaan dhulka joogta waxay sameeyaan inay falaar ku surto kadibna bahalkii ay ka badbaadiso markaas marka bahalka uu sii daayo wuxuu sameeyaa ninka lagu magacaabo Changi inuu bahalka u dhiboodo kadibna awoodiisa u isticmaalo bahalkiina uu uga jaro saasna bahalkii ayuu ku dhintay walaashiisna uu soo badbaashay kadibna boqortooyadii ay dib ugu soo laabtay asxaabay filimkii halkan ay ku eegayay waa dhamaaday asxaabay muuqaalka intaadna bixin like saara sidoo kale mataqaan asxaabtina kale share dhaha insha Allah muuqaalkan iyo muuqaalka in loo balaha